صدحية tobanka bishan aan ku jirna maamulka gumaysiga Israa'iil waxa uu weerar cirka aad u baaxad weyn ku qaaday Iiraan weerarkaasi oo waxyeello aad u weyn u geystay xarumihii nukleerka Iiraan weerarkani waxa ku dhintay saddex ka mid ah hogaamiyaashii military oo ay ku jiraan taliyihii guud ee ciidamada Mohamed Bagheri taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan Hussein Salami iyo madaxii howlgallada Gholam Ali Rashid howlgalkan gumaystuhu u bixiyay howlgalkii libaaxa kacay ee uu ka fuliyay gudaha Iiraan ayaa galaaftay bulsho rayid ah iyo qaar ka mid ah saynisyahanadii iyo injineeradii hubka nukleerka ah ee Iiraan sidoo kale boqolaal ayaa ku dhaawacmay weerarkan ayaa khasaare baaxad leh u geystay horumarintii hubka nukleerka ee Iiraan oo meel gabagaba marayay gumaysaha oo uu daba taagnaa gaalkii weynaa ee Mareykanka ayaa uga gol lahaa weerarkan inuu joojiyo in Iiraan yeelato hub nukleer ah iyadoo xogo sirdoon sheegayeen in Iiraan qirka u saarnayd inay yeelato hub nukleer ah sanad gudahood kani ayaa ahaa weerarkii ugu xoogganaa ee gumaystuhu ku qaaday Iiraan tan iyo 1980 maalin uu kadib bisha inuu ku jirna jawaabtii Iiraan